Soomaalida meel walba joogtana waxaan ka codsanaynaa inay taageerto anaguna insha Allah guul u soo hooyino. Waxaan joognaa garoonkii ciyaarta ka dhici lahayd berrito haddii Alla idmo. Xulka Soomaaliyeed maanta wuxuu sameynayaa tababarkii u dambeeyay maanta sameynaya oo uu diyaar garoobay tartankaas. ciyaartuna insha Allah ta'ala haddii Alla idmo waxay dhici doontaa berrito 7 saac xilliga saacada markay tahay. kooxduna waa diyaarsan tahay tiimka tababarka uu soo wadana ilaa hadda ma taqaanaa wax dhibaato ma jiraan. dhaawacyo badan ma qabno hal ciyaaryahan wax yarnaa qaba inta kale waa fiicanahay 100% waxaan rajaynaynaa inaan guul keeni doono insha Allah ta'ala ummadda Soomaaliyeed dalka dibadda meel bay joogaanba waxaan rabnaa inay ma taqaanaa qulubtooda soo taageeraan qaasatan dadka ku nool magaalada Kampala ama dalka Uganda inay berri stadiumka soo camiraan oo ay ma taqaanaa taageeraan Uganda community badan oo Soomaaliyeed joogta waan rajaynayaa inay kasoo qayb galaan waan u mahad celinaa haddii kasoo qayb galaan insha Allah ta'ala بالله توفيق ان تبارك ودنا بين ما انت لا سمي واحد باتنا ما قبله كوحدنا waxay diyaar u tahay koobkan inaan difaacno koobka Soomaaliya difaacanaysa koobkan horaan qaadnay hadana inaan qaadnaa rajayna insha Allah ta'ala waxaan la ciyaari doonaa South Sudan oo wadanka aan koob ka qaadnay ciyaarta u dambeysay oo 17ka Ethiopia 2 sano ka hor marka insha Allah ta'ala wasaas alxamdulillah wasida sheegta maanta trainingkeena ugu dambeeyay ayaan halkan ku sameeynaa hadii la yiraahdo training fudud ah بعدما بري aan leenahay geemka ugu horeeyay wallahi filashadayna markaas aad u sareysaa kadib diyaar garow aad u dheer aan soo galnay oo maanta aan soo gaban doono waxa inoo noqon doontaa biri fulintii waxa aan shaqadii aan soo qabanay insha Allah maanta tababar ku dambeeyay waxa awoodina ka qayb galaan 17 ciyaartooy micnaheedu waxay tahay ciyaartooy ayaa dhaawac fudud nooga maqnaan doono mana ka qayb gali doono kulanka bariye laakiin wuxuu diyaar garoobi doonaa insha Allah kulamada dambe 100% ayaan ku kalsoonahay inaan guuleysano ayaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsan lahayn inay taageerana la garab istaagaan dal iyo dibadba kuwa Kampala jooga iyo kuwa dibadda jooga iyo ducadiina waa inoo muhiim dagaalankana waxa keen insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim markii waxaan ku bilaabay magaca Ilaahay Ilaahba mahad iska leh halkan maanta nabad qab nagu keenay anagoo wada dhan kuwa Sweden ka yimid kuwa Soomaaliya xamar ka yimidba suuqa keenay Ilaahba mahad iska leh alxamdulillah marka labaadna xagan waxaan ku alamiinta waxaan ku qaadanay 4 maalmood aan si fiican ugu diyaar garoobaynay koobkan 17 jirada ninka afraad marayna aan u diyaar garoobayno koobka Britolana match waxaan leenahay ciyaar game waxaan rajaynaynaa inaan soo badino Soomaalida meel walba joogtana waxaan ka codsanaynaa inay taageerto anaguna insha Allah guul u soo hooyino